Siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda jilba culusta ah ee ugu saameynta badan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay waxa ay ku yeesheen xarunta dalka looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya. Kulanka maanta oo jawi degan ku bilowday ayaa waxaa looga hadlay ajendayaal kala duwan oo muhiim ah. Ajendayaasha ay mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda ka wada hadleen waxaa ugu horeysa adkeynta midnimada dalka oo ay dhinacyadu si weyn diiradda u saareen. Hannaanka dib u eegista dastuurka dalka, amniga iyo ciribtirka dagaalamayaasha Al-shabaab iyo hannaanka doorashooyinka tooska ah oo heshiis lagu yahay. Waxaa kulanka sidoo kale lagu faaqiday in mas'uuliyiinta weli ka maqan gogosha wada-tashiga qaran la baadigoobo oo lagu soo daro. Wadahadal dheer kadib dhinacyadu waxay isla afgarteen in la meel mariyo qodobada ay ku heshiiyeen. Balse waxaa jira madmadow siyaasadeed oo aad u weyn. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weli kaararkiisa kor ayuu u haystaa, halka madasha samata bixinta Soomaaliyeedna ay u muuqdaan kuwo cad uu ka saaran yahay halka geediga laga furayo, iyagoo dooduhu ay tahay in laga soo tago hannaanka doorashooyinkii 2022 ee awoodda badan siinaysay maamul goboleedyada, isla markaana diidaan habraacyadii, shuruucyadii iyo guddiyadii baarlamaanka u ansixiyay ee ka dhashay dib u eegista dastuurka. Waxaa jira buuq xooggan oo dhinacyada dhankooda ah iyo in ay isku gambanayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka oo Sheekh Shariif horkacayo. Siyaasiyiinta maadaama kulankan uu ahaa midkii koowaad, badi diiradda laguma saarin arrimaha doorashooyinka, kala dirista guddiyada doorashooyinka dalka iyo sidoo kale arrimaha kala duwan ee siyaasiyiinta mucaaradka si weyn u dhaliilsan yihiin. Waxaana siyaasiyiinta mucaaradka iyagoo kulankoodii koowaad ah ku fureen kulanka mid jawi degan oo aanan ka muuqanin xamaasadii iyo qeylidii tirada badneed ee bannaanka la joogeen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ciyaarayaa ciyaar aan la fahmi karin oo siyaasiyiinta mucaaradka uu ku kordhilayaa doorashooyinka iyo wax kasta uu doonayo. Madaxweyne Xasan waxa uu doonayaa in sidooda ay ku sii socdaan, halkaasi waxaa ka dhici kara dagaal iyo inay isfahamwaa dhex maro siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa lagu ballamay in 3 bisha Luulyo dib la iskugu soo laabto, 3 bisha Luulyana la sii ambaqaadi doono wadahadallada. Siyaasiyiinta maqan qorshaha uu yahay in gogosha la keeno. Wareegga xiga ee soo socda waxaa kala caddaan doonta habka iyo hannaanka ay tahay in doorashada tooska ah heshiiska lagu yahay lagu aado dalka. Siyaasiyiinta mucaaradka kulanka ee madaxweyne Xasan Sheekh maanta ay la yeesheen ayaana waxa uu yahay mid ka mid ah kulamadii ugu waaweynaa ee siyaasiyiinta mucaaradka in dhowaanahan ay la yeeshaan mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dalka. Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Kheyre, Shariif Xasan, guddoomiyaal hore ee baarlamaan, Rooble iyo siyaasiyiin kale oo waaweyn oo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu ka mid yahay ayuu maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda ku qaabilay xarunta dalka looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya. Kulanka ay dhex maray siyaasiyiintana wareeggiisa xiga ayay kala caddaan doontaa waxa ay ku heshiiyeen iyo waxa ay ku diraan. Aragtidaada qaybta hoose kaga soo dhiibo.